taas dambe aniga ma ogi laakiin madaxweynaha ay inuu og yahay oo ka jawaabaan dhageystaan memorandum of understanding la saxiixay wali ma akhriseen ma aragteen wali ila qabtan ku jirta madaxweynahana waa ogaay waa ka qanciyay meel lagu saxiixana ma ogi waxna kama ogi waxaan rabaa inaan su'aal in badan lagu weydiiyo dadku ka dharagsan yihiin inaan dhinac kala fiirsho arrintii MUO-gii memorandum of understanding-kii dhacday marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyay meeqa qof baa goobjoog ahayd marka la saxiixay aniga iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya labadiina wasaaradda arrimaha dibadda ma ogeyd Soomaaliya ogeyd wasiirku full inform buu ahaa ma taas kaliya ma aha si fiican kugu sharxaa ma waxaan rabaa inaan ogaado wasiirku inuu ogaay in kale daas wala rabo wax kan kama rabo ما يد go'aan cabinet-ka hada wasiirka hadda aniga inuu fadhiyo cabinet-ka ma hubo laakiin go'aan golaha wasiirada inta fadhiistay ka dooday go'aan laga gaaray waay waa gartay ka bacdi madaxweynaha loo gudbiyay ma wax oo fariiq meesha u socda halkaas ay ahayd adigu waxaad afkaaga ka sheegtay in dawladdu ay ogeed haddana noo sheegaysaa ra'iisul wasaaraha waa ogaa Umar Abdirashiid dawladii iyo golihii wasiirada Sheikh Shariif afkiisa wuxuu ka sheegay inuusan waxba ka ogeyn lana soconin uusan arag adiga Sheikh Shariif rumooda sheegi kartaa ma aniga waxaan dhageystay taas dambe aniga ma ogi laakiin madaxweynaha ay inuu og yahay oo ka jawaabaan dhageystay aniga wuxuu yiri ma ida hadan ka dhageystay aniga oo difaacay MOU-ga oo dhahaaya sax oo ahaa MOU ma hadlay wuxuu yiri xilligii doorashada on the record haddaan khaldanahay raaligelin aan ka bixiyaan diyaar u ahay badda sheekadaadu siyaasad waay waa garad soo maa ra'iisul wasaaraha idin jawaabay wasiirka idin jawaabay aniga dhabo arkinba warqad lagu saxiixana ma arkin meel lagu saxiixana ma ogi waxna kama ogi hadday fiican tahay dadkaasaa iskale hadday xumaataan ayaga iskale Sheikh Shariif wuxuu yiri arrinta saxiixitaankii memorandum of understanding dhex maray Kenya iyo Soomaaliya adiga iyo Umar Abdirashiid darawal ka ahaydeen anigu ma ogeyn waxana kama ogi ku yiri madaxweynihii dalku haduusan ogeyn adiga Umar Abdirashiidna aad ogtihiin iyo wasiirka arrimaha dibadda sheegaysa iyo safiirkii suurtagal ma tahay inuusan madaxweynuhu ogeyn adiga Umar Abdirashiidna aad ogeydeen ما يتصلت مدحينها ويدينيس لكن أنا بدنا كل شيء يعني ما أذن كويدين أنا قولها وزير there is no reason مدحوينه بدنا كوير هذا وحموكي مرك هذا وحرب أنا إيش يكتب إنه أوجا أو حاضر أها إننا نشيجن لا بس مكرر ما فرواجر هذا وحوي ويركع دراع شكر مؤجين مؤجين ويركع دراع ما كل شيء هذا جيش بس عايش مؤجين أوكي وحن كربا أذيك عمر عبد الرشيد مدحوينها مؤجي سيسين إن أرنت صحيح حسن مسمينا مؤجيسين ميدان كل شيء عاد عافد أنا ودرك الدبدي صارتكم مقنع عشان جو نيروبي لكن هل وحنكو هو حنكو شيء جرس مدحوينها يرز الوزارة يقولها وزير هذا سيدا با أنا أود أمله إن MOU وحو رفع هذا الشيء عن صحيحه صح وشيء حيس وحاسكال وزير كلمات دي بدأ رئيس الوزراء waxaan ku seexayna power of attorney oo warqad oo seexay amarkooda kahor laakiin waxa loo bandhigay golaha wasiirada waa laga dooday waa laga qancay madaxweynahana waa ogaay waa ka qancay aniga qajinsa madaxweynuhu ogaay anaaba ku sheegay madaxweynaha inuu og yahay oo ka qanciyay oo dadka khubarada ah ee arinta bandhigay madaxweynaha u bandhigeen golaha wasiirada u bandhigeen laakiin waa u bandhigeen bay sheegaysaa waxaan rabaa inaan ii sheegtay tiraahday mar rabaa inaan taariikh iyo saacad kuma weydiinayo madaxweynuhu wuu nala qaatay arrintan wuu nala ogaa iyo umaanaan sheegin because Sheikh Shariif wuxuu afkiisa ka sheegay meesha lagu saxeen uusan joogin waxna uusan ka ogeyn arrinta ayada ah adigu waxa leedahay wuu ogyahay aniga teedan u hadli karaa teedan u hadli karaa aniga madaxweynaha inuu ogyahay madaxweynaha ogyahay Sheikh Shariif wuxuu yiri waxba kama ogeyn dadweynaha Soomaaliyeed u deelna iyo waaga Sheikh Shariif arrinta halkaas uga tagno